السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي دوائن سلامي برنامجكي ugu dambeeyay oo wacyigelinta idin soo sheegay waxaan idin ogeysiyay inaan ka hadli doono ama inoo bilowmi doono barnaamij wacyigelin oo la xiriirta dumarka iyo ragga waxa kala qabsada markii la kala tago ilmaha hooyada lagu dayaco iyo way carruurta victimska looga dhigayo arrintaas wacyigelinteeda noo bilaaban doonto waana bilaabeynaa insha Allah galabtaana bilaaban doonaa haddii Ilaahay noo suurtageliyo su-aasha ugu horeysa horta waxay tahay markii laga hadlayo dumar iyo caruur markii laga hadlayo horta waan dareemi karnaa hooyada waa ii sheeg aabaha isku mid maahan hooyada waa hooyo ilmaha ayada dhashay 9 bilood calooshkooda korisay way kaga xaq badan tahay that's why ilaahaygiina abuurtay oo anaga adduunkana keenay uu noo sheegay in hooyada 3 jeer ee aabaha ka xaq badan tahay sababtoo ah dhibka ilmaha la mareyso ayaa ka badan dhibka ilmaha la maraayo aabaha waa mas'uul waa aabo waa ilaahay baa keenay ilaahay baa dhiigiisa iyo dhacankiisa ilmahan ka beeray laakiin waa laga xaq badan yahay waa laga mas'uuliyad badan yahay waa laga waajib badan yahay sidaas darteed ilmaha hooyada aad bay u dhow yihiin ilmaha hooyada mar walba 100% way la jiraan khilaafka markuu dhaco oo la iskhilaafo hooyadii iyo aabi iskhilaafaan especially dumarkii markii ayaga dhib ay qabaan ayaga ay banaanka yimaadaan ay ka hadlaan dhibkooda ay dalbadaan fariin waxaa dhacdo waxaa lagu xijiyay ilmaha in laga reebto waa mid iyo haddii ilmahaas hooyadaas xorriyadeed markii la siiyo la fasaxo ama la furo in aan ilmahaas wax mas'uuliyad aabaas ka saareen oo مسؤولية إلهي ساري وأنا فقط عرّتاس أنت دونان بالمها نقدان هل نقضوا لابها نقضوا صدها نقضوا أفرها نقضوا أنت دونان إلهي كديقو مر هدي هاي داس حرنمو دلبتو دل قادم ويدو يبكي كجرت بنانك إني أوصل بحدا جوان كذا قالته وها أيضنا كل عايو أو إيشك ماشي كلا كل من دونتا مسؤولية إنه أبي إسكافك وين دعدا وحياة مركا هويين فرب بدن المها لو ضيعنا كم تمدس أيضا شروط أي تهاي الرجال لنا على كي ما نسوا أما إسفرشة إيشك أي تهاي أو هويد إسكفرنيسو sababtoo ah furiinka wax ilaahay banay labadii heshiin weydo ama isla noolaan weydo waa inay kala tagaan ama ninka ka yimaado ama naagta ka timaado sidee doonta waxa ku noqdo whatever the cause it is waa wax xalaal ah oo banaan hadii la heshiin waayo oo la soo dul qaadan waayo oo reerkaas la dhaqi waayo in la kala tagaa waa